wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis oo maanta shir ay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dhawaan ay Soomaaliland ka qayb gali doonto shir caalami oo ka dhici doona dalka Ingiriiska shirkaas oo laga hadlayo ganacsiga iyo maalgashiga wasiirka ayaa sheegay in dawladda UK ay shirkan si gaar ah ugu soo casuuntay Soomaaliland shirkan oo la filayo in bisha soo socota ee fufada nagu soo raanteed uu ka dhaco magaalada London dhinaca kale wasiirka ayaa sheegay in ka qaybgalka shirkan ay uga faa'iideysan doonaan sida ay Soomaaliland beesha caalamka ugu soo bandhigi lahayd kheyraadka dabiiciga ee ku dugan dalka waxaan halkan isugu yeeray inaan idinka wargeliyo shirka weyn ee ganacsiga ah ee dawladda Soomaaliland iyo Ingiriiska ku qabanayaan bisha soo socota October 14keeda shirkaas oo ah shirkii ugu weynaa ee dawladda Ingiriiska ka qabato London waxa sharar hore ay ka qabteen Ingiriisku wadana fara badan oo la dhowrayso wadana oo Malawi leh oo Gabon leh oo Cameroon leh iyo wadana fara badan iyo Djibouti iyo Soomaaliya imkana waxay noqotay doorkeennii marka waxaanu doonaynaa inaanu idiin sheegno sidii aan ogala shaqayn lahayn wacyigelinta arrinka weyn ee maanta khuseeya ganacsatada reer Soomaaliland iyo ganacsatada caalamka ee aad iyo aad u xiiseynaysa inay ka soo qayb gasho shirka waxaanu filaynaa inay dad fara badan oo aad iyo aad ahmiyad xoog leh u saaraya kheyraadka waddankani leeyahay inay ka soo qayb galaan waxaanu filaynaa inay ganacsato fara badan oo reer Soomaaliland ka qayb galaan shir baan halkan ugu qabanay ganacsatadeena iyo Chamber of Commerce-keena iyo wasiirkeena Musa Qaasim oo imka naga maqan laakiin arrinkan dhiirgaraynaya arrinkan waa arrin aad iyo aad u weyn waxaan u aragnaa inay maanta Soomaaliland gaadhay heer caalamkii uu tixgelinayo in kheyraadkeeda dadka caalamka loo sheego marka horta waxaan idinku yeelno in shirka soo socda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis maruu ka hadlayay wada hadaladii hore u dhaxmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeysay gaabis galay ayaa sheegay in wada hadaladaasi ay dib u furmi doonaan wasiirka arrimaha dibadda arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri dhibaatooyin ka taagnaayeen annagu waxaanu jeclahay inuu shirku socdo waanu soconayaa safiirka Turkiga la kulanay iyo dawladda Turkiga waxay rabaan in October ka dhigaan ayaamihii wali kuma heshiin November awalkeeda laga yaabaa inuu dhacdo waa shir aan doonayna inuu socdo oo sida kaliya ku kala tagi karnaa dawladda xamar ee Muqdisho ku taala waa inuu ka wada hadalo iyo heshiis shirkan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ku dhawaaqay inay ka qayb gali doonto Soomaaliland ay ka dhici doona dalka UK ayaa sida la filay waxa ka qayb gali doona wasiirada ka mid ah xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsatada dalka qaarkood Cabdiraxmaan Carab Daawud TV-ga Kalsan magaalada Hargeysa.